magaalada Buurdhuubo ayaa ku jirta magaalooyinka ugu ammaanka badan ee dalkeena Soomaaliya marka loo eego xilliyadii la soo maray ciidamada ammaanka iyo shacabka degmada Buurdhuubo ayaa kaalinta koobaad ka dhigay sidii ay amni ugu seexan lahaayeen isla markaana ganacsigoodu xor u noqon lahaa xilli walbana ay u ganacsan lahaayeen goobaha ganacsiga ayaa furan xilli walba gaar ahaan xilliyada habeenkii ah oo dadka dalka ka maqan ay aaminsan yihiin inaan lagu ganacsan karin dalka sida ay xaqiijiyeen bulshada deegaanka oo aan la sheekaystay xilli aan booqday goobaha lagu qaxweeyay ee magaalada ayay indhahaygu qabanayeen dadka deegaanka oo si caadi ah xilliyada habeenkii isaga qaxweynayo iyaga oo aan wax cabsi ah haba yaraatee dareemay aaminsan meeshaan inay tahay meel aan horumar ka jirin ama maaragtay ishag amni ka jirin ama wax ayna ka jirin meeshaan waa meesha aad arkaysaan oo habeennimadii aminkaan aan maaragtay iska qaxweynayno waxaan u sheegaynaa marka dadka dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland iyo waliba gaar maaragtay dadka qurba joogta oo degmada ka maqan in Buurdhuubo aysan ahayn Buurdhuubadeeda hore ay Buurdhuubo tahay mid ugu sareyso gobolka oo ah maaragtay meesha aan hadda maaragtay iska baashaalin habeennimadan amniga maaragtay uu aad u sareeyo dhan walba maaragtay nolosha habeenkii amankan doon aan socon karno waxa weeyo Buurdhuubo waxa weeyo Buurdhuubadeeda ma aha waxaan gadnaa cabitaanada noocyadooda kala duwan meeradan magaceeda waxa la yiraahdo Salmaan waxaan gadnaa cabitaanka sida aad u muuqataba oo ka daahanayso iskafaalaha noocyadooda kala duwan walaal horta marka hore magacaan dad badan oo ganacsatada Buurdhuubo kala tashtay aniga dukaankan waxaan furay 8 bilood ka hor anuu shaqadayda xamar baan ka shaqeyn jiray waxaan meeshaan oo magaaladeeda wax badan laga sheegay inaysan amni ahayn shaqadeeda aysan fiicnayn dadku aysan magaranaysa habeenkii aysan ku fiidsanin magaalada gudaheeda marka sidaas awgeed shaqadayda xamar waan kansalay waxaan ku bedeshay macmacaanka inaan ka furo magaalada Buurdhuubo marka waxaan shaqadaas xamar u soo kansalay anoo caasimad joogo oo Buurdhuubo uga furay dukaankan waxaan arkay baahida inay taagan tahay dad badan oo khubaro ah markaan kala tashtay magacyo badan bay sheegeen sida kulmiye magacyo kale way jiraan laakiin aniga waxaan u bixiyay macmacaanka sare ah oo Salmaan iska bixi ama laga bixi waxaan ku iibiyaa cuntada qudul daruuriga ah oo kamid yahay raashinka burka bariiska dharka sida fiisha dhalinyarada dharkeeda oo maaliyadaha oo kale surwaalada shaatiyada shoppingka waxyaalo badan baan ku iibiyaa meeshaan sida macmacaanka oo biyaha cabitaanada oo kale oo ma sha Allah uu fiican yahay habeen iyo maalin buu magaaladu waa ganacsataa gaar ahaan anagu meeshaan ilaa habeenkii imid dambe ilaa 5 saac aadan Maxamed Axmed taliyaha amniga degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sambuur oo aan kula kulmay gudaha magaalada ayaa sharaxaad kooban iga siiyay sidii ay ku timid nabadgelyada ay shacabka Buurdhuubo ku naaloonayaan hadii aan ka warbixiyo Buurdhuubo amnigeeda saad arkaysaan hadda waxaan joognaa goobihii ganacsiga ahaa oo macaanyada day ahaayeen iyo deesha abaal ahayd baan isla caweynayna bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhalinyaradii reer Buurdhuubo taas marka waxay ku tusaalinaysaa in degmadanada ay tahay mid amnigeedu uu yahay 100% degmada Buurdhuubo waxaa jooga maamul iyo dad shacab ah oo isku tashtay muhiimadoodana qodobka koowaad saaray amniga tuusan amni jirin horumarka aasaaskiisa waa amniga waxaan marka ku guuleysanay in Buurdhuubo amnigeeda uu noqdo 100% wada shaqeynta laamaha amniga iyo maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ka dhaxayso taas oo ayadoo wax badan laga wada shaqeeyay waxay sababtay in Buurdhuubo ay ammaan noqoto habeenkii ilaa 3 saac 4 saac 5 saac lagu gaaro qofka meesha uu doono haduu uu mas'uul yahay iyo haduu shacab yahayba uu xorriyadiisu oo ku dhaxmari karo ganacsiga waqtiga uu doono uu ku gaari karo taas marka waa sabab Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu keenay laakiin ay keenan reer Buurdhuubo iyo shacabka reer Buurdhuubo iyo maamulkooda oo wada shaqeynaya bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay ku suurta gashay aniga oo gudoomiye ku-xigeenka degmada inaan fadhiyo taalada degmada Buurdhuubo aminka inaan fadhiyo waxa sababay dadweynaha ku nool degmada Buurdhuubo iyo maamulka degmada Buurdhuubo dhammaan waxay iska kaashadaan arrimaha amniga iyo wax kasta oo maamulkooda ku imaan karo
iyo wax kastoo shacabkooda ku imaan kara iska kaashadaan taasaa kaliftay inaan aminkan meeshaan warsame xaaji faarax raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado.